aan ka hadlo anoo ku hadlayo magaca maamulkan Koonfur Galbeed inaan sheego muddadii uu maamulkan jiray iyo waxqabadkiisa iyadoo kooban inaan halkan ka soo sharxo sidaad ogtahay maamulkan ka hor magaaladani dhibaato xoog leh ka jirtay oo ahayd in dadku ay ku heshiin waayeen inay maamul ay u leeyihiin samaystaan kadib waxaa lagu guuleystay in dadkii iska soo horjeeday la mideeyo arrintaasna qayb weyn waxaa ku lahaa madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed mudane Xasan Fiqi kadib waxaa suura gashay guddiga farsamada ee maamulkaasi in la sameeyo oo dawladda dhexe ay magacaawdo dawladda dhexena ay guddigaasi Muqdisho u soo dirto labadii qaybood oo magaalada khilaaf ka dhaxeeyna ay si wada jir ah u dhisaan dawlad ay u wada dheeyeen dawladdaasoo hadda 2 sano iyo xoogaa jirsatay dawladdaasi maadaama waqtiga iyo arintu aad ay u cuslayd waxay ahayd dawlad ku timid rabitaanka shacabka dadkoo nabadgelyo awgeed waxaa micnaha doortay madaxweynaha markaasi ergo micnaha ka kala timid 3 gobol ee Shabeellaha Hoose Baay Bakool iyada oo jidkii loo maray uu ahaa jid ku habeysnaa habkan dastuuriga ah ee erga doorashada ah kadib waxaa la go'aansaday in la dhiso baarlamaan ahaan waxaan u qaadanay markaasi odayaasha dhaqanka oo tiir u ahaa dhismaha maamulkaasi wixii ka dambeeyay dastuurkii ayaa la ansixiyay dastuurkii markii la ansixiyayna doorashadii ayaa la soo bandhigay shuruudihii la sheegay ergadii ayaa micnaha muxuu ahaa dooratay micnaha ka kala timid 3 gobol oo shacabka markaa ayaga matalayay iyo oday dhaqameedyada oo wada jira taana waxaa ka soo baxay madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Xasan Fiqi ka bacdina waxaa la dhisay dawladda ugu horeysay markaan xaqiiqda ka hadlay dawladdan markii la dhisay waxaa lagu dhisay geed hoostiisa ma jirin maanta meelaha aan fadhino iyo dadkeenan martigelinaya caalamka iyo maamul goboleedyada ma aysan jirin baraaka ku taalo magaaladani geed ka mid hoostiisa ayaan xasuustaa wasiiro ani aan ka mid ahay oo inay micnaha ku guuleysteen 4 wasiiro ugu horeysay ee la magacaabo maamulkan ayaan ka mid ahaa geed hoostiisa ayaan ku dhaaranay muddo 2 biloodna maamulkaas waxa shaqeynayay 4 wasiir ee shaqeynaysay beeraha muxuu ahaa arrimaha gudaha cadaaladda iyo maaliyadda intaasna 2 bilood waxay dawladaan u ahayd 4 wasiir bas u shaqeynayeen dib u heshiisiinta ayaa la dhameystirayay markii dib u heshiisiintii la dhameystirayna waxa lagu guuleystay si nabad loogu soo dabaalo dawladdii oo dhammaan in la wada dhiso dawladdaas oo ahayd dawlad dib u heshiisiineed waxaana markiiba loo kala diray gobolada Shabeellaha Hoose iyo Bakool iyo gobolka Baay ee loo qeybiyay waxa dawladdan ay bilowdayna oo saldhig u noqday wuxuu noqday asaaskeeda amniga 1 amniga 2 amniga 3 dawladdaasi waxay ku soo shaqeysay duruufo aad u adag waxay ku soo shaqeysay xafiis la'aan waxay ku soo shaqeysay cadaawad badan dhexdeeda oo qoladan shabaab ay ugu horeyso waxaa la gaarsiiyay oo maamulkan uu ku guuleystay maanta in ay wasaaradaha idilba 2 sano barka bacdi 2 sano iyo dhowr bilood kadib in lagu guuleysto in golaha wasiirada la horgeeyo sidii dad badan ay ku andacoonayeen oo ay lahaayeen maartay maamulkani ansax ma aha sababtoo ah baarlamaan sooma dooran anaga baarlamaan waxa noo ahaa odayaasha dhaqanka sida dastuurkeena ku taalo taasina waxay noo suura gelisay markaan chance helnay inaan dawladda salka u dhigno wasiiradii inay ku guuleystaan in la xulo xildhibaanadii in la sameeyo xildhibaanadii markii la sameeyayna intii muddo ah waxaan sugaynay u diyaar garow ah in dawladdan isbedel lagu sameeyo kalsoonida shacabkana ay qaadasho baarlamaankana ay soo marto dawladda waxaan soo gaarsiinay dawladda maanta dhisan waa dawlad ku guuleysatay baarlamaanka inay soo marto oo aan magacaabista madaxweynaha kaliya aan ku iman xiriirkeena wuxuu gaaray inaan ku faanayno maanta inaan nahay dawladda kaliya maamul goboleedka kaliya
ee jimcid qurumaha ka dhaxaysan ninka ugu sareeyay inuu u yimaado magaaladan Baydhabo isagoo soo maray xerooyinka idilba taasina waxay muujinaysaa amniga wanaagsan ee micnaha